magaalada Buuhoodle waxaa maanta galinkii hore ka dhacay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo wadahadallada Soomaaliland iyo Khaatumo sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa waxay si weyn u taageereen dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu horeeyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale waxay ku qaylinayeen ereyo ka dhan wadahadalka Soomaaliland iyo Khaatumo waxaana sidoo kale dibadbaxan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan badbaadada Khaatumo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Buuhoodle oo iyagu halka iyana ka hadlayay waliba ururada haweenka magaaladu waxay rabtaa nabad iyo xasilooni qof keliya oo ay magaaladu diidan tahay oo ay gaar u maagaysaa ma jirto qadiyad bay rabtaa ummadda shirkii garaadada iyo shirkii dhulbahanta iyo shirkii Khaatumay ku go'an tahay waxaa wax tafaraaruqana ma ogolin waxaalaaliyo muxadiyana wixii aynu markii hore meesha dhiganay khilaafayna ma ogolin kuwantii tobankii qodobna lama qancin annaga waydi salaamaya waxaan kaloo u sheegayaa dadweynaha reer Khaatumo iyo gobollada ACC dhammaantood war maamulkii hore wuu fashilmay war ninkan quusan naftiisa quusa maamul degdega oo dadka metelay la isugu yimaado oo la taageero shirkii garaadada iyo waxgaradka gobollada ACC madaxweynihii hore waa fashilmay ninkii sugaya oo cali Soomaaliland buu galay inoomana soo socdo warninkaan quusan naftiisa quusan ninkaasi waa galay intaan ka quusanay xagga quusataanu leenahay aadan carabna 20 sano ka hor asxaarood qabsigeeda Buuhoodle la raacin maayo ma ogolaanayo hawlkaasaa dadka isu keenay la iibsan kari maayo fasaydkooduna waa kaa ay muujinayaan meesha amar jeclo nabad bay rabaan inay kula noolaadaan laakiin siyaasad kula nooli maayaan iyaga iyo wixii la halmaada taasaanu doonaynaa oo waynu ku wada hadalnay taliyayaasiidii raggiisu wuxuu leeyahay sukuumuu quraac lagu jabay iyo guriga saacadheeda sirtii erigoolama qadiyey rasuulkaa dhuuftay sababtii balli cad maalintii loogu siiyey uunka sallaalaya wixii hore nagu sameeyeen sabra maalinteena la dhigeen sababku umaaniya sabaan iyo sabaan reerihii solka wada yaalo isku sare kaasoo buuq la geli soo waraana ee dadkii weliya saantii ahaa la isku soo feeyay oo sabiga iyo maatadii la rasabay gaare dalka siinaaya dhaxal ugama tagi wuxuu nooga tagay abo wuxuu nooga tagay asay wuxuu nooga tagay goblan wuxuu nooga tagay gurmadow wuxuu nooga tagay gambaxo dablaan baraka duunyaraan kaasuu siinaaya nooga tagay dadkeennii dagaal baa qaaday dhaawac baa galay barakac baa galay hal qof oo doonaya kursi inuu helo iyo dhaqaalo wax la qaadan kara maaha waxaan leeyahay hooyooyinka magaalada Buuhoodle joogow waa idinka doorad mashxaradaya ee calidaw mashxaradaya waataad ku dagaalamaysaan waa nala celinaysaan waa nala difaacaya qarannima naloo doonaya maanta uu Soomaaliland u gacan galay oo uu yidhi siinaaya wuxuu nooga tagay mustaqbal dhaxal la yidhaahdo oo aad ogtihiin inta wiil 20 jir ama 30 jir ama gabdhood laga maqan ma waxaad qaadateen dumarka aan garanayo inaad cagtaa ku saacidaan nolosha dadka idinkaa idinka sugayaan dhalinyaro mustaqbalka idinkaa idinka rabaa alqali furid ku jooga waxaa u hadhay hal fulin baa u hadhay inuu Buuhoodle yimaado wadada uu dooro halka wuxuu doonaya ku heru rabaa waxaan leenahay rabitaankii waxaad ku muujisaan cali inuu wiil ka noqdo kuwii idinla joogay ee xantiina uruurinayay ee isku dirkiina ka shaqaynayay ee hubkiina tirinayay maanta weerarka ku ah cadowga meel fog idinkama jiro cadowgaad isla xamanayseen oo isku dilayseen oo u sheekaynayseen oo maanta idinku soo socda tanaana idinka rabaa waxa loo socda waa magaaladiina waxa loo socda waa hubkaa xiniyaha inoo ah ee aynu hub wax kula qaybsanno ruma idiin sheegay reeb wada tashada waxaan idinku baaqayaa Somaliland waa la soo wadaa cidda soo wadaana waxay ku marwar soo doontaa Puntland baa Buuhoodle laga xoreynaya waxaa Buuhoodle laga xoreynaya Puntland ma aha hubkeena cidda Buuhoodle laga xoreynaya waa raggeena waxaa la rabaa in idinka dhigo maato iyo shacab ruma idiin sheegay magaalada idinka saaraa rabaa dad idiin ciil qabana soo wada haddaad Somaliland rabtaan idinku la heshiiya yaa idinkiina haddii aynan rabin midnimo ku hor imaado oo la dagaalama
ثم يشيء ربهم يلا بكرقيب قيمنا ugu dambeyntii mudaharaadkan looga soo horjeedo wadahadalka Soomaaliland iyo Khartoum maanta ka dhacay Buuhoodle ayaa imaanaya iyada madaxweyne Cali Khaliif Galeer iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ku sugan yihiin degmada Werwer oo Buuhoodle qiyaastii kaga beegan 60 kiiloomitir dhinaca bariga mana jirto wax war oo ka soo baxay ilaa hadda maamulka Khartoum oo ku aadan barnaamijkan ka dhacay maanta Buuhoodle وعلى عثمان على الدكتور ورقة الفريش كعلمي Ismail News مقالة Buuhoodle